سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار intaa dabadeed walaalayaal waa kalimaad kooban maaha mowduuc cilmi iyo fiqi iyo faham badan u baahan maaha waa mowduuc aynu isku baraarujinayno isagoo ilaahay adeecaya inuu caasiyo isagoo xaalkiisu wanaagsan yahay inuu xumaado isagoo caqiido wanaagsan caqiidadiisu xumaato isagoo muslima walciyaadu billah inuu gaaloobo isagoo sunniya oo salafiya oo waddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku socda inuu baal maro oo firqooyinka halaagsamay ee lumay waddadooda uu qaado waxaasoo dhani waa dib u laabasho wey kii awalba lunsanaa awalba xaalkiisu xumaa ee xumaanta la kowsaday iyo gaalnimada iyo macaasida iyo bidaca iyo dalaalaadka ee waddadii uu ku bilaabay weli haya kaa ka hadli mayno ilaahay aa soo haday waxaynu ka hadlaynaa kii wanaagsanaa ee dib u laabtay maxaa sababay inuu dib u laabto maxaa keenay xaalkiisii wanaagsanaa inuu isbedelo mowduucaasaynu dul istaagayna waxaa soo weheliya sababaha iyo saamaynteeda markaynu ka hadalno inaynu soo qaadanno dhacdooyin iyo qisooyin alla subxaanahu wa tacaala ka waramay kutub taariikh wtaraajim wsiyar culimmadeenna inooga qisoodeen iyo kuwo waaqiceenna ka dhacay iyo kuwo badan oo aad goobjoog u tihiin ama aad og tihiin oo wakhtigu aanu saamaxayn in la wada sheego mowduucu waa mowduucaas alhidaaya wlintikaas qof hanuunsanaa oo laabtay qof wanaagsanaa oo xumaaday qof cibaadooyinka iyo daacooyinka ku dadaalayay oo xagga kale u baydhay mowduucu inuu mowduuc khatara yahay waxaa ku yimi aayaat badan iyo axaadiis badan baa ku yimi alla subxaanahu wa tacaala waxa uhi kitaabkiisa فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين markay leexdeen ayuu ilaahay leexiyey qofka lumaya iskama lumin waa sabab isagu uu kasbaday فلما زاغوا markay leexdeen baydheen أزاغ الله قلوبهم ayaa alla subxaanaه wa tacaala qulubtoodii leexiyey سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض waxaan aayaadkayga iyo fahamkiisa ka leexinaya kuwa dhulka markay joogaan iskibriya wuxuu alla subxaanahu wa tacaala yidhi waman yurid illaah fitnatah falan tamlika lahu min allahi shaya qofka alla uu doono inuu fitneeyo adigu nebi maxamedow waxba uma haysin cid kalena waxba uma hayso ka alla uu la doono inuu fitneeyo haddii qur-aanka lagu dhammeeyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam culimo kasta iyo codkar kasta ay isugu yimaadaan waa falan tamlika lahu min allahi shaya ilaahay xaggiisa iyo ilaahay wuxuu la doonay cidina ka celin mayso sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam markaynu eegno waxaynu ka helaynaa adilo badan oo macnaha tilmaamaysa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu soo warinaya abi umaama
albanina saxiixinayo saxiixu ljaamica. saxaabo kalena laga soo wariyay sida anas bnu malik radia allahu tacaala can wagayrihi min asaxaaba. wuxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam laa tacjabuu bicamali caamil xataa tanduruu bima yukhtamu lahu. laa tacjabuu bicamali caamil xataa tanduruu bima yukhtamu lahu. qof dadaalaya oo cibaadaysanaya oo wanaag ku sugan ha la yaabina. waxaad eegtaan halka uu ku dambeeya eega. wainama alacmaalu bikhawaatiimiha. wuxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam tixgelintu waa waxa lagugu khatimayo ee aad adduunyada kaga tegayso. waa xadiidkii sahl ibni sacad ee bukhaari ku yimi ee saxaabadii markay gaaladii la jihaadayeen nabiga calayhi salaau wasalaam ay la socdeen ayaa waxaa la arkay nin aad u dagaalamaya oo saxaabadii la socday. markii la soo hoyday maalinka gabalkii uu dhacay ayay saxaabadii sheekaysteen wixii maanta la soo maraya sidii dagaalku u dhacay. waxay yidhaahdeen nabiguna waa maqlaya calayhi salaau wasalaam maa ajza'a mina alyawma axadu kama ajza'a fulaan. maanta sida ninka hebel la yidhaahdaa uu waajibkiisa u gutay ee gaalada ula jihaaday cidina uma jihaaday. nabigu calayhi salaau wasalaam waxa uu ihi amaa inahu min ahli nnaar. isaga miyaa ninkaasi waa ahlu naar wey. waa ninkii saxaabadu majeeranayeen. aad baa looga naxay. fazica asaxaabatu lidalik. waa la argagaxay. nin khushuucsan oo sujuudsan oo habeen barhkii cibaado u taagan ama gaaladii birta ka aslaya oo camalkiisa la jeclaystay ayaa nebiga waxybaa ku soo degaya. waxa uhi ninkaasi waa ahlu naar. waxay dhahdeen saxaabadii ninkaasi naar hadduu galayaa badbaadaya. nin saxaabadii ka mida wuxuu ihi ana anduru lakum khabara. war ninkaasi wuxuu naar ku mutay saanaan dabagelaya. ninkii uu dabagalay dagaalkiiba meel buu iska dhigay. wuxuu hi ninkaasi markuu dhaqaaqana waa ka daba dhaqaaqay, meeshuu istaagana waa ka daba istaagay. ninkaasu baan daba socdo aan hawl ka dhigtay. ninkii sidii u dagaalamayay ayaa la dhaawacay. dhaawac culus baa ku dhacay. nin geesi ayuu ah. ma jeclaysan dhaawaca inuu la taaho. seeftiisii intuu dhulka ka taagay daabkeedii ama halkii qacanta lagu qabanayay ayuu waxa weeye taxamala calaa nafsi. naftiisuu ku darqiyey. calooshiibuu ku qabtay, dabadeedna waa cadaadiyey. seeftii waxay ka baxday, dhabarkiisay ka baxday. wuxuu doonayaa si degdega inuu u dhinto. nabiguu ku soo laabtay calayhi salaau wasalaam. wuxuu u sheegay qisadiibuu u sheegay. nabi allow sidaasaa saxaabadii yidhaahdeen, adiguna sidaasaad ku jawaabtay. hawshii waa laga naxay. waxaan idhi ninka warkiisa anaa dabagelaya. xaalkiisuna saasuu ku soo dhammaaday. nabigu wuxuu ihi amaa inii rasuulullah. anigu waxaan ahay rasuulkii allaan ahay. waxii baa usii sheegay ninkaasi xaalka uu ku dambayn doono. waxaa bukhaari iyo muslim ku yimi xadiidka caankii arbaciinka lagu soo maray ina arajula la yacmalu bicamali ahli ljanna xata maa yakuuna baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi lkitaab fayacmalu bicamali ahli nnaari fayadkhulaha. nin baa wuxuu ku sugnaanaya camal wanaagsan, camalkii jannada. siduu u wado ayaa markuu jannada u jirsado dhudhun wax leeg ayaa waxaa ka hormaraya wixii ilaahay uu ku ogaa ee looxul maxfuudka ugu qornaa. wuxuu samaynayaa camalkii ahlu naarka. kaaswaa lagu oofsanaya oo uu ku dhimanaya. taasna
baktiga nasiib maahe waa wuxuu isagu kasbaday. sababaha aynu sheegi doono wax ka mida laga helay, taasaa keentay inuu dib u laabto, khaatimo xumana loogu khatimo. walaalayaal, mowduucu inuu halis yahay waxa kaloo inoo sii adkaynaya qofku inuu ka baqo khaatimada, inuu ka baqo sidii ambiyaduba ay uga baqayeen, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uga baqayeen, dadkii saalixiinta ah ee wanaagsanaa ay uga baqayeen. nabiyullaahi ibraahim abulambiyaa, oo marka laga yimaado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada ugu fadliga badan, khaliilullah, kii alla subxaanahu wa tacaala u jeclaa, ayaa waxa uu leeyahay wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam. muwaxid buu ah, xaniifan millata ibraahim baa alla subxaanahu wa tacaala ku sheegay, nin ka leexday shirkiga iyo gaalnimada oo xagga tawxiidka u leexday. baqdin uu baqayo, ilaahay wuxuu weydiisanayaa wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam, aniga iyo ubadka aan dhalay waxaad ka ilaalisaa sanam inaanu caabudno, naga ilaali. nabiyullaahi yuusuf alkariim ibnu lkariim ibnu lkariim ibnu lkariim, nabiyullah ibnu nabiyillaah ibni nabiyillaah ibni nabiyillaah. waa yuusuf, waa nebi, waxaa dhalay yacquub oo nebiya, awow waxa u ah isxaaq oo nebiya, awow labaad waxa u ah ibraahim calayhi salaam. ayaa waxa uu leeyahay wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhin waakun min aljaahiliin. markuu ka baqay fitnadii dumarka, wuxuu hi ilaahayow, jeelka ayaa ii wanaagsan, haddaadan i badbaadin oo aadan iga leexinna waan u iilanayaa, waxaanan noqonayaa qof jaahila oo macaasiya dunub dhex galay. nebiga noocaasabaa sidaa naftiisa ugu baqaya. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anas bnu maalik kaana kaiira ma yaquul yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diini. ilaaha quluubta gadgadiyow, qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada. nebigu waa badinaya calayhi salaatu wasalaam. nebigu ilaahay wuxuu ka magan galay oo uu ku soo celcelinayay allahuma ina nacuudu bika min alxawri bacda alkown. alkown waa cimaamada marka la wareejiye madaxa lagu adkeeyo, xawrkuna waa marka la furfuro oo looga jeedo inta aanu iimaanka iyo aacada iyo wanaagga aanu ku sugnaanay yaanaan dib uga laaban. alrujuucu ila alkufri bacda aliimaan wa ila almacsiyati bacda aaca bay culimmadu ku macneeyeen. ilaahay waxaanu kaa magan gelaynaa inaanu dib u laabanno. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ka magan geliyay. wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam quluubu lcibaadi bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa. addoommada quluubtoodu laba farood oo faraha alle subxaanahu wa tacaala ka mid ay u dhaxeeyaan. ilaahay farihiisana isagaa og, laakiin sida loo sheegay baynu u sugaynaa, qaabkeeda ilaahay baa og. yuqallibuha kayfa yashaa, ilaahay qaabkuu doonuu u gadiyaa. qalbigaagu ilaahay qacmihiisa iyo farihiisu ku sugay, laxdad ama sikib buu bedelaya oo xaaladii aad ku sugnayd alla subxaanahu wa tacaala gadinaya. wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lafdiga kale imaamu axmed uu soo warinayo ee saxiixa ah, qalbu bni aadam bayna isbacayni min asaabici araxmaan in shaaa aqaama. haddii alla uu doono waa toosinaya, wa in shaaa azaaqa, haddii alla uu doonona waa leexinaya. wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ma alqalbu ila kariishatin fii falaah tuqallibuha alriyaax. qalbiga bini aadamku wuxuu ka dhigan yahay
sidii baal shimbireed fudaydkeeda cid waliba waa garanaysa oo bannaan laga taagay xilli dabayli dhacayso oo dabayshu hadba dhinac ay kaga imanayso waa baal bannaan taagan xilliga xagaaga dabeel xagaa ay ku soo dhacayso siday u saamaynaysa cid waliba waa dareemaysa wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qalbu bni aadam ashaddu taqalluban min alqidri ida istajmaca khalayaana qalbiga bini aadamku waa ka badbadel badan yahay oo ka gadgadoon badan yahay waxa weeye digsigu markuu karkaro halkiisii ugu dambeeyeyna uu gaadho waxa ku jira sida ay isu laba rogayaan ayaa qalbigu bini aadamku isu badbedelaya oo isu rogaya walaalayaal khatarahaasoo dhan baa inugu xeeran waxaan uga gudbayaa intikaasada ama laabashada macnaha aynu u soo sheegnay inaynu sii caddayno markaynu dib u gurasho ka hadlayno ugama jeedno qofkii wanaagsanaaye dembigu ka dhacay kaa ka hadli mayno qof wanaagsan oo hal mar dembi uu ka dhacay ama ka toobad keenay ama ilaaway laga hadli maayo waayo nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam kullu bani aadama khata wa khayru lkhataa'iina tawaabuun ambiyada unbaa la ilaaliya dadka gafku waa ka dhacaya marka kaasi muntakis ma aha qof laabtay ma aha salaadii buu dadka la tukaday waa wanaagsan yahay dembi baa ka dhacay masjidkii buu ku soo laabto waa cibaadaystay waxaa laga yaabaa cibaadada uu cibaadaystay loogu dambi dhaafo haddii xitaa towbad gaara aanu la iman haddaanay dembi weynahay maxaynu haddaba uga jeednaa waxaynu uga jeednaa qofka isagoo wanaagsanaa oo waajibaadka gudanaya dunuubta iyo macaasida iska ilaalinaya waxa weeye waajibaadkii ka tegay oo joogteeyey waajibaadka inuu ka tago ama macaasidii sameeyey joogteeye macaasidii inuu sameeyo oo daa'imay welibana muujisanaya la soo ifbaxaya qofku haddii xitaa uu wax qarsanayo waa laga yaabaa khaatimadiisu inay xumaato khataro badan buu ku jiraa laakiin sida inoo muuqanaysa waa qof wanaagsan kaynu ka hadlaynaa waa ka ay caddaatay inuu laabtay jamacuu la tukanay waa wanaagsana cibaadaduu ku dadaalay waxaa la arkay isagoo salaadii ka tegay waxaa la arkay isagoo macaasiya iyo dunuub badan dhex dabaalanay waxaa la arkay isagoo balwad bilaabay qaadkii iyo sigaarkii burburinay waxaa la arkay isagoo xumaan iyo macaasi la soo ifbaxay oo aan ka xishooday calaamadihiisa waxaa ka mida almujaahara inuu la soo ifbaxo isagoo aan ka xishooday wuxuu ley nabigu calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin dadka dhammaantii waa kuwa dambaabaya waa la cafinaya kuwa la soo ifbaxay mooyaane waayo ka la soo ifbaxay waana ku madax adagya daacina waa ku yaho dadka waa ugu yeedhaya oo dad badan baa kaga dayanaya waa calaamad lagu garanayo qofkaasi inuu dib u gurtay oo dib uu laabtay inuu wixii la soo ifbaxo oo bannaanka uu la soo baxo calaamadaha waxaa ka mida inuu saaxiibadiisa bedelo dad wanaagsan buu ku xidhnaa akhyaar buu saaxiib la aha wuxuu ku bedelo booskii geliyey oo wakhtigii uu la qaadanaya dad aan wanaagsanayn wuxuu ka mid ahay xarta masjidka wuxuu u bedelay golayaal kaloo macaasi iyo dunuub lagu hayo iyaduna waa calaamad shalay akhyaar buu la socday maantana ashraar buu la socdaa oo wakhtiga la qaadanaya oo la saaxiibaya la sheekaysanaya waxaad ogaanaysaa qofkaasi inuu yahay qofku daayey calaamadaha waxaa ka mida qofku inuu socday lagu garanayo laabtay maaha qof mar iyo laba dembigu ka dhacay maaha calaamadaha waxaa ka mida
inuu waxa weeye xaalkiisu uu isbedelo oo waxa weeye inkaar uu ku sameeyo diintii ama wax ka mida iyo dadkeeda qaabka uu eegayo iyo sida uu la macaamilayo iyo ka hadalka uu ka hadlaya inuu isbedelo waxaad arkaysaa qobaraha bulshada ku badan iyo fadhi ku-dirarka ku badan mid waxa weeye wadaadada saaran mid culimada saaran waan soo kala reebay waa dhici kartaa wadaad inuu ku khaldamay oo uu ka gardaray waa dhici kartaa wadaad khalad samaynaya inuu arkay ama jamac laakiin haddaad aragto isagoo isku qaadaya dadka diinta sheeganaya dadka masaajidada jooga dadka wadaadada sheeganaya dadka culimada sheeganaya dadkas hadduu sidaa isugu qaadaya oo qofku daayay waayo de hadduu shaksi iyo laba haysto waa loo garaabaya laakiin inuu si guud dadkii diinta u eego ama aqoonta u lahaa ama cibaadaysanayay ama masjidka ku xidhnaa waxa weeye waxaad ogaanaysaa qofkaasi inuu yahay qof xaalkiisu xumaaday ayaad waxa weeye dareemaysaa wamaa aktarahum kuwaana maxaa ka badan welibana markuu dib u gurasho sameeyo cidda ugu horaysa uu iska eegaya waa dadkii uu la joogay waa iyaga ayuu ka baqayayo xaal og cidda uu colaadsanaya uu ka bilaabayaana waa iyaga walaalayaal intaanan mawaaqifta iyo sababaha u gelin waxaan halkaa ku ishaarayaa markaad aragto qof xaalkiisa xumaaday isbedel uu ku yimi sida ugu habane loola macaamilaya waa maxay dadku inta badan qaabbay ula dhaqmaan tuziidu tiina billah waxa weeye qofka sii fogeynaysa aan soo dhaweynin dadku inta badan way ka sheekaystaan waa la xantaa isagoo joogaa la maagaa waa loo goodiyaa waxa weeye lama soo dhoweeyo wejigaa laga dadbaa waxa weeye sheekaa laga dhigtaa bal dadka qaar shamaatay ku sameeyaan oo way ku madadaashaan bal dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku farxaan ama ay uga sheekeeyaan sidii dadku faraxsan waa ninkii adadkaa ee mintidka ahaa ama ninkii baqiiqnaa ama ninkii sidaa yeelayay ama ninkii aynu ka nasan weynay ee maalin walba xaaraanta aynugu hayay warkiisa ma haysaan kaalaya soo daawada iyadoo laga maadaysanayo ama lagu faraxsan yahay ama lagu diganayo ayay dad badani uga hadlaan waxyaabahaasoo dhanina kaa ka hadlaya laftiisay halaag ku tahay waxay salafkii yidhaahdeen laa tudhir ishamaatata biakhiik fayucaafiihi illaahu wayabtaliik walaalkaa oo xumaan ku sugan waxa weeye ha ku digan waayo waxa suuragala inuu isagana ilaahay caafiyo oo hagaajiyo adigana lagu imtixaamo bal waxaa taariikhda looga soo joogay qofku walaalkii waxa uu ku ceebeeyo inuu isaguna ku dhaco man cayara akhaahu bidanbin lam yamut xataa yacmala qofka walaalkii ku ceebeeya dembi isagoo ku diganaya ma dhinto ilaa uu dembigii ku dhaco qofkaasi ma dhinto ilaa uu dembigii ku dhaco khatar badan baa ku sugan maxaynu u baahannahay horta kow waxaynu u baahannahay altathabut watabayun in jaakum faasiqun binabain fatabayan warka inaad iska hubiso waar ninkii hebel waa ka dhacay hebel waa saaqiday hebel balwad buu bilaabay hebel waa xumaaday hebel halkaasuu ku jira hariya habeen horta warka lagu keenaya inaad hubiso التثبت in aad iyo aad la ysaga hubiyo war badan iyo shaayacaad badan iyo been abuur badan baa dadka dhex buuran ama facebooka dhex hortaya qodobka labaad arifqu wallii in loo naxariisto
oo dhibirsanaan loo sameeyo. ibn اlqayim raximah اllahu tacaala wuxuu yidhaahdaa markaad aragto walaalkaayo xumaan ku sugan laba indhood baad ku eegaysaa, bicayni araxma il naxariisayd waad ku eegaysaa in ilaahay isaga imtixaamay adigana alle subxaanahu wa tacaala uu kaa badbaadiyey oo aad u baahan tahay ilaahay naxariistaa inuu kuusii ziyaadiyo, isagana aad u baahan tahay dhibkaas inaad uga naxariisato. caynuraxma in lagu ego. isha labaadna waa caynulinkaar, in la inkiro oo waxa weeye lagu adkayo looga diga xumaantaas. dhibirsanaanta iyo liinkaana waa loo baahanya in la soo dhoweeyo. qodobka saddexaad adducaa waa cadamu shamaata, inaad u ducaysa ilaahay inuu soo hadeeyo, xaalkiisii wanaagsanaa dib ugu celiyo oo aadan ku digan. annusxu wa tadkiiruhu bixayaatihi saabiqa, in si wanaagsan loogu naseexeeyo, loo caqli celiyo, noloshii wanaagsanayd iyo xaalkiisii wanaagsanaa la xasuusiyo, iyo sidii uu ahaa markuu xaalkaa ku sugnaa iyo xaaladan hadda uu ku sugan yahay iyo dhibkeeda adduunya aakhiraba in la xasuusiyo. qaabkaa in loola macaamilo ayaynu u baahanna insha allahu tacaala. sababaha waxaa kow ka ah dib u gorashada keenta qofku xaalkiisu inuu sii xumaado, qofku inuu ka gaabiyo daacaadka, fududaysto macaasida iyo dunuubta. salaadii jamaacada ayuu ka caajisayaa, fududaysanaya, sunnayaashiibuu fududaysanaya, daacooyinkii iyo cibaadooyinkiibuu fududaysanaya, oo waxa weeye uu ka tegaya oo dayacaya. salaadiisibaa bilaa khushuuc noqonaysa. hadduu tukanayo salaad aan ruux lahayn oo nuxur lahayn oo qalbigiisa aan saamaynayn oo jaantaan rogan oo iga geeya ayuu hadduu cibaadadii la yimaada la imanaya. waxaa taa dhinac socota inuu macaasidii iyo dunuubtii fududaysto. waa dembi yar, waa dembi fudud. iyaakum wamuxaqiraati dunuub faina laha min allahi aaliba. waxaan idin kala digayaa idinka iyo dunuubta la fududaysto ee la yaso. waayo alle subxaanahu wa tacaala ama ha yaraato ama ha weynaato waa mid uu kaa dalbayo oo annagu kaala xisaabtamayo. wuxuu nabigu ku shabaha calayhi salaatu wasalaam sidii dad meel degay toga oo doonaya inay wax karsadaan, fajaaa daa bicuudin wa daa bicuud, kana qori buu keenay, kana qori buu keenay. markay isu keeneen waxay noqotay xaabo wax shidaysa oo wax gubaysa oo cuntadii bislaynaysa. dunuubtuna waa saasoo kale. markaad mid samayso aad fududaysanayso, xaabadii xabad baad keentay, mid labaad baad u geys. ida ijtamacna fi mri'in yahlikna, qofka markay isugu yimaadaanna waa gubayaan oo waa halaagayaan. fududaysiga wanaagga la fududaysanayo waxa weeye ama la fududaysanayo macaasidii. waxaynu tusaale u soo qaadanaynaa nin saxaabadii ka mida ayaa wuxuu beer buu lahaa, dabeedna beertii uu lahaa ayaa bislaatay. markuu beertiisa ku tukanayo wuxuu ku mashquulaa waxa weeye midhihii bislaaday iyo beertiisa. wuxuu u yimi cumaan ibnu cafaan, wuxuu hi salaadaydii waan inkiray, salaadu salaadaydii ma aha, waxaana ku mashquulay markaan cibaadaysanaya beertaydii baan ku mashquulay, ee maxaan sameeyaa? cumaan ibnu cafaan waa la tegey. ninkii wuxuu u sheegay, waxa uu cumaanow waxaan kuu sheegayaa beertaa dhammaanteed waa sadaqo, hor allaan ula baxay si aanay mar dambaba i mashquulin. fasumiya dalika almaalu lkhamsuun, waxaa loo bixiyey xoolihii kontonka ahaa ayaa loo bixiyey.
waxay la mid tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa loo soo hadiyadeeye maro salaadii buu galay maro aad u sharaxan oo qurux badan bay ahayd khamiisay ahayd markuu salaadii ka baxay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam idhabuu bikhamiisatii haadi waatuunii biambijaaniyati abi jahl fainaha alhatnii aanifan can salaati waa daah waa maro ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam loo soo hadiideeyey markuu tukanayay ayuu arkay midabadeedii iyo quruxdeedii ayuu salaada dhexdeedii ku daawaday mar allaale markaa uu bejka facebooka furo ayuu caalam kala gelaya markuu ka baxana waa axsanu nnaas waa ka dadka ugu wanaagsan markuu xisaabtamay waxa u soo baxday meesha laga soo gelayaaba inay facebooka tahay oo intaa kale naftiisa waa ka adagya laakiin markuu nadkaa galo ayuu badweyn gelaya gabadh qaawan filimaan xunxun macaasiya dunuub kale ayuu dhex dabaalanaya waa isku ilaawaya maxay dawadiisu tahay inaad beer dhan oo aad leedahay aad ka dhex baxdo adoo isla salaada ku khushuuc iyo inaad facebookaba iska dhiilid garayso keebaa sahlan adoo diintaada ilaashanaya waxa sahlan facebooka inaad ka takhalusto qof waliba wuxuu leeyahay meel laga soo galo meeshaa laga soo gelayo inuu ka takhaluso ayay badbaadadiisu ku sugan tahay qisooyin iyo mawaaqif badan waaqiceenna iyo kuwii horeba baa dad badan waxa laga soo galay wax yar oo uu sahashanayay oo uu fududaysanayay ayuu waxa weeye ku halaagsamayay sababtaasi waa sabab daacada inaad fududaysato sahashato ka tagto macaasidii iyo dunuubtii ay kula fududaato kadibna aad dhex dabaalato waxaa ka mida sababaha keena qodobka labaad qofku inuu dib u gurasho sameeyo in qalbigiisa kibir uu galo urur inuu galo inuu dagtoomo qab iyo han baana inuu iskaliyo dadka inuu yaso iyo wixii la mida ilaahay waxa uu isaa asrifu waan ka leexinaya can aayaati aayaadkayga iyo fahankiis iyo dhaqangelintiis waxaan ka leexinayaa aladiina yatakabbaruuna fi lard kuwa dhulka markay joogaan isweynaysiinaya cilmigaa doonta yeelo xaalkaagu meeshuu doona ha gaadho laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbi mihqaalu daratin min kibr janno ma gala buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam quraanjo wax leeg kay qalbigiisa ku sugan tahay oo kibra qadiyadda ku saabsan qofku inuu naftiisa ku dagtoomo naftiisa la cajabo markaan mowduucan in badan darsay waa qodobka ugu badan ee dadka halaaga isla weyni inay ku sugan tahay qab inuu ku sugan yahay wuxuu soo gelayaa masjidka iyo goobihii wanaagsanaa wuxuu arkayaa dad iska busada ah oo waxa weeye masaakiina oo waxa weeye xaalkoodu iska degan yahay oo maryo caadiya iska xidhan ayuu arkayaa dabeedna dhex jooga dadka uu dhex joogayo ayuu iska weynaysiinaya waa ka dhex baxaya wuxuu odhanayaa dadkani dadkaagii maaha ummado kale ku xidhmaya dabeedna waa ku halaagsamaya in yaroo cilmiyuu baranaya intiibuu isku neefaynayaa sida biilbiilaha markuu isneefeeyo waxaa ku xigaya inuu qarxo kadibna waxa weeye uu halaagsamo qadiyadaasi waa qadiyad saamayn badan dadkii hore iyo dadka dambeba ku keenaysa kibirkaasi madaahir badan buu leeyahay waxaa ka mida inuu jecel yahay magac inuu helo maamuus inuu helo teetal inuu helo xil jacayl iyo kursi jacayl iyo inuu caan baxo iyo waxyaabaha la midka ah ayuu aad u jeclaysanaya waxay salafkii yidhaahdeen aakhiru maa yakhruju
min ru'uusi الصaalixiin الtara'us xub الtara'us waxa ugu dambeeya ee dadka wanaagsan qalbigooda ka baxa waa madaxtinimo jacayl. waa ka ugu dambeeya. adduunyada inuu ka zaahida waa fududa oo hantidiisa uu ka dhex baxo, laakiin magaca iyo maamuuska waa ka ugu dambeeya dadka wanaagsan qalbigooda ka baxa. waxaa ogtihiin si magac loo helo in lacag lagu bixiyo, sooma lacag baa lagu bixiya, oo nin baa waxa weeye tiifiyada u yeedhanaya ama shaashadaha suuqyada yaalla lacag ku bixinaya si sawirkiisa uga soo baxo. waxa weeye lacag wuxuu ku bixinaya sidii uu magac u heli lahaa. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, akhwafu maa akhaafu calaa ummati ashirku washahwatu lkhafiya. waxa ugu badan ee ummaddan aan uga baqaya waa ilaahay cibaadadiisa cid kale inay la wadaajiso ama shahwada qarsoon inay qalbigooda degto. ashahwatu lkhafiya waa madaxtinimo jacayl. ibnu rajab alxambali markuu ka hadlayay wuxuu sheegay tusaale cajiiba. wuxuu hi magaalo ayaa waxaa jooga nin zaahida oo adduunyada ka zaahiday, dadka ka dhex baxay, masjidka u go'ay, cibaado u go'ay oo zaahida. dadkii baa isu sheegayay, caan buu ku noqonaya. waxaa la odhanayaa hebel zaahid, magacii buu qaadanaya. ninkii siduu sidaa u yahay xaalkaa ugu sugan yahay baa maalinkii dambe waxaa imanaya nin ka zohdi badan. ninkii akhyaarkaa wuxuu maqlaya, waar ninkii hebel ahaaye zaahidka ahaaba nin yidhi bikh oo fadhiisiiyey baa magaaladii yimi. ficil baa gelaya. dabeedna wuxuu isku dayayaa ninkaasi inaanu ka zaahidsanayn inuu caddeeyo. wuxuu u gudbayaa ninkii inuu xanto, wuxuu u gudbayaa ninka ceebihiisa inuu dabagalo. waa ninkii zaahidka ah ee ummadda ka go'ay. wuxuu odhanayaa intii yarayd aad haysatee lagugu yaqaanayna ma godkaagiibaa biyo kuugu soo galay, ma lagaaga daba yimi. intiibuu difaacu gelay. welibana waa qofkii wanaagsanaa wey, kii awalba iimaankiisu daciifka ahaa ee kursiga jeclaadayna waxa weeye hadalkiisa badaan. wuxuu yidhi mucaad bnu jabal radia allahu tacaala canh, oo ardaydiisii ay ka sheegeen, golo kastoo uu soo fadhiisto wuxuu ku talinaya, inna min waraa'ikum fitanan, waxaa dib ka iman doona fitnooyin iyo imtixaano. dadka dhammaantii qur-aankay baranaya, yaakhuduhu alsagiiru waalkabiir waalrajulu waalmar'a. ninkii waxa weeye weynaa iyo kii yaraa, rag iyo dumar, qur-aankii baa la baranaya. dabadeedna waxa soo baxaya dad odhanaya, waar qur-aankii aniguba waan bartee maxaa la ii soo raaci waaye, maxaan dad u yeelan waaye, maxaan xer iyo arday u yeelan waaye, ayuu odhanaya. wallaahi maa hum bimuttabiciya xataa abtadica lahu. qur-aankii haddaan dad ku waayay wax cusub waa inaan u keena. dabadeedna waxbuu bidcaysanayaa, wax cusub buu keenayaa. wax kastoo cusubina xiisuu leeyahy, likulli jadiidin ladda. dad baa dabagelaya. maxaa lumiyey? waxa lumiyey wuxuu doonayaa in la dabagalo. tusaalayaasha waxaa ka mida dadka dagtoomay ee kibray ee naftooda la cajabay kadibna sidaa ku socday ninkii loo yaqaanay cabdalla alqasiimi annajdi. wuxuu ahaa nin ilaahay diintiisa baray buu ahaa. culimmadii islaamku ay ammaaneen. wuxuu ahaa nin culimmada qaar ay yidhaahdeen ninkaasi xuuralcaynta meherkii laga bixin lahaa iyo camalkii janno lagu geli lahaa kitaab hebel baa ugu filan. dafaca mahra aljannati amanan bihada alkitaab. kitaabkaas uu diinta islaamka ku difaacayo ayuu janno ku gelayaa bay dhahdeen. kutub badan oo qiimo badan buu lahaa.
kuwa uu shiicada ku baabiinayo oo shubahaadkooda digaandigaha uu kaga dhigayo, kuwa uu ugu jawaabaya dadka mulxidiinta, kuwa uu hilfaha ugu qaadayo qubuuriyiinta iyo dadka suufiyada ee xabaalaha dul fadhiistay. kutub badan buu diinta islaamka ugu heliyey. ninkaas isagoo sidaas haddana waxa uu helaysay taqashuf iyo zuhdi, halkii ugu dambaysay buu ku sugnaa. nolol ciriiriya ayuu iskeliyey. dadka waxa weeye raaxada iyo nolosha wanaagsan iyo nicmada jecel maahay, zaahid buu ah. waxa weeye taqashufayo nolosha isku adkeeyey oo cibaadaysanaya. waxaa intaa u helisay markuu isku darsaday maskax badni iyo ninkii madaxa taagaba inuu madaxa ka jabiyo, aftahanimo, cilmi badan, xifdi badan, kutubtiisii oo lala dhacay oo aad looga helay oo culimmadii ay ammaantay, ayaa waxa galay inuu naftiisa la cajabay. quruur baa ku dhacay. welibana markay u sii wehelisay taqashuf iyo zuhdi iyo shaqooyinkii iyo adduunyadii inuu iskaga tegay, wuxuu isyidhi meesha aad joogto cidiba gaari mayso. quruurkaasi marba meel buu jooga, waa ku sii badanaya. culimmadii waa ammaantay, laakiin waxa uu yihi ammaantaasi iguma filla, intaa ka badan baan istaahilaa. low ansafuu lakuntu lmuqadama fi dahri. culimmadu hadday cadaalad samayn lahaayeen aniga cid laygama horraysiiyeen, dadkaanaa laygu horraysiin lahaa. meelaan joogana cidi kama hadasheen. wuxuu bilaabay mar haddii ammaantii uu doonaya culimmadii ka waayey inuu isagu is-ammaano. gabayuu isku ammaanay, uu isku buunbuuninayo. waa ka sii gudbay. wuxuu gaadhay inuu diintii u daba jeediyo. wuxuu u gudbay ilxaad iyo diin la'aan buu u gudbay. wuxuu gaadhay siduu isu buunbuuninayay, wuxuu ihi cilmigayga haddii loo qaybiyo khalqiga bini aadamka loo qaybiyo, low qusima cilmii bayna alkhalqi la aghnat can irusuli buui. haddii cilmigayga bini aadamka loo qaybiyo, ambiyo umay baahdeen nebi aadan laga soo bilaabay ilaa nebi maxamed. cilmigayga loo qaybiyey baa qof walba ku filan, rasuul uma baahday. ninkaasi wuxuu sii socdaba wuxuu u gudbay inuu alifay kutub uu kaga digaya diinta islaamka. kutub uu leeyahay haadihi hiya alaglaal, wixii qoortanna loo suray waa tan. salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii iyo diinta dhammaanteed waa wax qoortanna loo suray oo ay tahay laga dhex baxo. waa kitaab uu u bixiyey haadihi hiya alaglaal, waxyaabihii qoortanna loo suray. kutubta uu alifay waxaa ka mid ah alcaalamu laysa caqlan. caalamku caqli ma aha. wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo alinsaan yacsi lihaada yasnacu alxadaaraat. qofka bini aadamkaahi dembiguu samaynaya, markuu macsiyo iyo dunuub sameeyana xadaaruu samaynaya, horumar buu samaynaya. laakiin inta uu isilaalinayo isuruurinayo ee u wadaadaynayo, waxa weeye horumar keeni maayo. dibdhac iyo takhalluf ayuu ku sugay. laakiin markuu xadhkaha goosto, wax walba u walaaqdo, markaasuu xadaarad samaynaya. sidaa gaaladuba ay horumar uga gaadheen markay wax walba sameeyeen. waa kitaabka. wuxuu alifay xataa laa yacuuda haaruun arashiid. haaruun arashiid si aan u soo laaban, oo khulafadii muslimiintaee amarka lahaa ee dadka diinta ku xukumayay, si aanay inoogu soo laaban kitaabku ka alifay. wuxuu alifay fircawn yaktubu shafra taariikh. fircawn buu ammaanaya, buunbuuninaya. fircawn taariikhda ayuu galo wax ka qorayaa buu kitaabka alifay iyo kutub lamida.
ilaahay buu diidoo inkiray, nebinimadii buu diiday, diintuu dhaleeceey, wuxuu ku sifoobay ilxaad ayuu ku sifoobay. ninkaas kutubtii markuu muslimka ahaa uu qoray, hadalladii uu ku hadlay iyo markii dambe hadalladiisa baynu hal ka soo qaadanayna. kitaab uu ku radinaya ilxaadka iyo diin la'aanta ayaa waxa uu leeyahay, dad baa waxay yidhaahdaan alraddu cala almulxidiina laa yujdi shayan, dadka diin la'aanta in loo jawaabaa faa'iida male. dad baa sidaa yidhaahda buuri oo odhanaya qofku markuu soo galo xaydaanka islaamka, xaydaanka ilxaadka markuu soo galo, waxa weeye dib uga laaban maayo, markaa in loo jawaabo ma baahna mar hadduu mulxid noqday. wuxuuhi isagoo hadalkiisa sii wata, taasina waa xujo liidata buuri, ixtijaajun daciifun mahiin. wuxuu hi man daaqa xalaawata altawxiid walubaaba alikhlaas, qofka towxiidka xaqiiqadiisa dhadhamiya, hayhaata an yakhruja minhu, waxa aad u fog inuu ka baxo mar haddii towxiidku qalbigiisa uu dego. wuxuu hi weligay ma maqal qof iimaan iyo towxiid qalbigiisa uu galay oo dib u laabtay, weligay ma maqal buuri oo ma dhicin. hadalkaasi waa hadal uu leeyahay suuragal maaha qof mu'min noqday inuu dib u laabto. kutubtiisii dambe ee gaalnimada ahaana waxa uu ku sheegay, wuxuu hi insaanku waa tusaalaha ugu wanaagsan. insaanku tusaalaha ugu fiican ee la tiigsanaya bini aadam uu gaadha waa huwa alcaasi almutamarid, qofka ilaahay caasiyey ee welibana madaxa adag ku madaxa adag, qofka noocaasa tusaalaha ugu wanaagsan ee bini aadam noqonaya. wuxuu hi ixtilaalu ilaahi licuquulina huwa afdaxu anwaaci lixtilaal. ixtilaal waa taqaanaa, ingiriis baana gumaystay, waa gumaysi. wuxuu hi gumaysiyada la isgumaysta ka ugu halisaysani waa allah inuu maskaxdeenna gumaystay. wax ilaahay lagu sheegayo ayaa maskaxdeenna gumaystay, waana gumaysi ka ugu xun caqligaaga in la gumaysto. ilaahay buu dabadeedna aflagaaday, waxba hadalkiisa soo qaadan mayno. ninkaas cilmiga halkaasuu ka gaadhay, adduunya iyo zuhdigeeda halkaasuu ka gaadhay, diinta difaaceeda halkaasuu ka gaadhay. waa ninkaan la yidhi jannada waa sii qadimay meherkeedii, wamaca daalik xaalkiisuu halkaasuu ku dambeeyey. markii dambe wuxuu ku dhintay dhakhtar masar ku yaalla qaahira. waxa weeye laba qof isugumay iman, waajibkii unbaa laga gudi, laakiin laba qof isugumay iman. hadduu wanaaggiisa ku sugnaan lahaana aaskiisa khalqibaa isugu iman lahaa. isbitaalka intaasoo bilood buu ku sugnaa, cidina kuma booqan. ilxaadkaas iyo waxa uu ku dhacay awgeed maxaa sababay? ninkaas wuxuu ku sifaysnaa horta adayg iyo taraxtag, adduunyadii uu ka zaahiday uu ku sifaysnaa. wuxuu kaloo ku sifaysnaa uruur iyo naftiisa inuu la cajabay oo naftiisa uu eegay. waxaa kaloo lagu sifeeyey wuxuu ahaa dadka muranka badan, xaasha daacad haddii la tuso ku murmaya inay madow tahay. dadka muranka badanna way lumaan. maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutuu ljadal. dadka qajajacdaya muranka badan, wuxuu xitaa kugu waafaqsan yahay kugula murmaya, waa dad halis ku sugan weeye. waxyaabaha kale uu ku sifaysnaa waxaa ka mida asafsada wa mukaabaratu lxaqaa'iq, waxyaabaha xaqiiqooyinka inuu diido, safsado iyo isdiidsiin inuu ku sameeyo. waxay ka mid ahayd
tilmaamihiisay ka mid ahay. waxaa tilmaamihiisa ka mid ahaa wax walba inuu su'aalo badan oo tashkiika ka keeno, falsafadda inuu dhex galay, waxyaabahaasoo dhan baa isugu tegay, xaalkiisuna halkaasuu ku dambeeyey. waxaa ka mid ah asbaabaha qofku inuu garan waayo meelaha lagu lumayo iyo meelaha looga imanayo iyo imtixaanka iyo fitnooyinka, inuu qofku garan waayo iyaduna waa mid ku keenaysa qofka khatar ku keenaysa. oo qofka haddii ilaahay cilmi uu siiyo, garasho uu siiyo, fahmo meelaha fitnadu kaga imanayso, waa qof badbaadaya. laakiin hadduu garan waayo ama uu garto u fududaysto, qofka noocaas isaguna waa ku fitnoobaya, waa ku lumaya. aad bay u badan tahay. ninbaa isagoo wanaagsan wuxuu la saaxiibayaa saaxiibo xun, dabeedna dhaqankoodu qaadanaya, iyaguu la mid noqonaya. cid walibana waa og tahay saaxiibku inuu saaxiibkii saamaynayo. sababaha waxaa ka mida anoo aad u soo koobaya fitnatulmaal. xoolo jeclaantuna waa qodob asaasiya oo dadka fitneeya. kii wanaagsanaana xaalkiisa xumaysa oo waxa weeye badasha. taana tusaalayaasheedu waa badan yihi. xoolo jeclaysigu waxaa keena altawasucu fi lmubaaxaat, altabaahi bidunya, alhaakum takaatur. qofku haddii uu mubaaxaadka ku tawasucayo, guriga ugu fiican baan doonaya, gaariga ugu fiican baan doonaya, ninka ugu hantida badan inaan noqdaan doonaya, nolosha ugu fiican baan doonaya, markuu qofku waxa isku qafilo waxay noqonaysaa inuu u dhaqaaqo xalaal iyo xaaraan wixii soo galaba inuu qaato. almubaahaat, ilaahay waxbaa buu siiyey, laakiin wuxuu doonayaa dadka inuu ugu lacag bato. wuxuu doonayaa taajirka barca inuu noqdo lambar wanka, ama ka somalilan, ama ka ummadda soomaaliyeed, ama sida ragga qaar ay yidhaahdeen africa waa 50 dowladood, 100 malyan baa ku nool, inaan kaalinta koowaad bill gates u noqdo ayaan doonaya. rag baa yidhi. taasi maxay keenaysaa khayr badan oo uu ku sugnaa inuu waxa weeye ka gaabiyo, xaalkiisuna uu xumaado ayay keenaysa. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kacb ibni ciyaad, ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati lmaal. ummad waliba fitnay leedahay, ummaddan fitnadeedu waa xoolo. waxaa laga yaabaa isagoo wanaagsan ayuu shaqo gelaya. shaqadii waxa maamulaya oo ka sarreeya ama iska leh ninaan diinta ku fiicnay. wuxuu odhanaya waar salaadan aad wadwado, waktigaas macaamiil badan baa joogtay, jooji salaad, haddii kale shaqada waad ka tegaysa. dabeedna wuxuu bilaabayaa salaadda inuu la dhunto. sida qaar ka dhacdana 2 salaadood 3 salaadood inay isu geeyaan. sida yurub ka dhacda 5 salaadoodba biljumla u bixinay. gaal baa mashquuliyo salaaddii u diiday. dabeedna 5 salaadoodba markuu ku noqdo guriga ku laabto ayuu iyadoo kun buleeda qadimaya 5 salaadood. salaad la aqbalaya ma waa salaad xilligeedii baxday. qaar badan baa soo weydiiyay, waxay yidhaahdeen shiikh intaanu shaqada ku jirna 2 salaadood baana dhaafaa, markaanu tagno meeshii ku laabanno xaafadihii baanu tukannaa, intay sii socdanna waa saacad salaad kala soo gelaysa. 3 salaadood ay isu gaadhay buu gurigii tegay oo waqtigeedii baxay. shiikh shaqada haddaan ka baxana xaalku waa kala kacaya, shaqo kale sida loo helo waa adagta. ma waxaan nidhaahnaa shaqada ka tag oo waxa weeye salaada waqtigeeda og. ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. mise shaqadaada iska wado oo mise waxa weeye shaqada uga tag, shaqada ka tag. qaar badani iyagaa isu fatwooda. ninbaa isoo weydiiyey ama nin saaxiibkiiyabuu ku yidhi waar gaalada inaan ribo ka qaato guri aan ku dhisto
kiradii baa dhibaysa baan culimadii wadankii joogtay soo weydiinaya mid kale saaxiibkii uu sheegay wariyaha runta ma ku sheegaa ku haddaad jaanis weynayso adaaba jaanis haystee haddaad guri hanti helayso riba ku helayso cidna weydiin anaa kuu fatwoonay mid dhaama ma anaa kuu fatwoonaye ilaahay kirada hadduu kaa furdaamiyaha walaac cidna weydiin ma oga kirada iyo culayska halkay naga haysta kuwa Soomaaliya ma jooga ma oga waa xoolo jeclays adduunyo jeclays waa dad badan karkaarka weydaarinaysa mawaaqiftu aad bay u badan tahay mawaaqifta waxa kamida hadaynu midhiya laba soo qaadanno dadka adduunyadu lumisay ninkii loo oranaya bal'am ibn ba'ura sida loo badinayo watlu alayhim naba alladhi aataynaahu ayatina wa nin ilaahi ilmi siiyay culimada qaar waxay yiraahdeen waxa la siiyay ismullahi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab magaca ilaahay ee weyn ee hadii lagu bariyo uu ajiiba ducada ayaa ninka la baray ninkii waa la fitnay oo markii nabiyullaahi Muusa jabaabiradii uu ku duulay riwaayadka qaarna waxay sheegayaan nabiyullaahi Yuusha ibn Nuur oo Muusa Haarun ka dambeeyay markuu jabaabiradii ku duulay ayaa la faqay waxa la yiri ilaahay cilmigu ku siiyay ducadaaduna waa mustajaab maanta tolkaagi baanu nahay wax allaale waxa doonaysan ku siinayna ee waxaad noo habaartaa waxa weeye Muuse iyo qowmkiis ama Yuusha iyo qowmkiis wariga daayabu waayo hadaan habaaro dhahaba ad-dunya wa aakhirati ad-dunya aakhira labadaba waa seegaya ee iga daaya falam yazalu bihi hatta fatanu kama yazulin illa ay ka fitnayeen waxbay u ballan qaadeen dabadeedna waxa uu waan habaaraya wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ka qisooday watlu alayhim naba alladhi aataynaahu ayatina fansalakha minha wa kahub sibt faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin shaytan bala ra'i oo duusaday wuxuu noqday mid lumay ayuu noqday walaw shi'na la rafa'nahu biha ilaahay wuxuu leeyahay hadii aanu doono korbaanu cilmiga diinta ugu qaadinahay walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa hawadis ayuu raacay famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhad aw tatruku yalhad ilaahay waxa faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun ayad al-labaad waxaad uga qisootaa qisada iyo kuwa la midka si loogu waantoobo inay bilaash u dhaafto ma ilaahay baa cilmiga siiyay ilaahay baa u doortay qaar baa yiri xitaa waa loo waxyoodo waa nabi laakiin mas'uula waayo de suuragal ma mar hadduu nabi noqdo inuu dib u laabtaa suuragal ma anbiyadu waa macsuumiin laakiin wuxuu ahaa nin ilaahay cilmiga u doorto ilaahay cilmi siiyay adduunya fitnaysay xaalkiisuna wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ka warramay waxa la mid ah ninka loo yaqaan ar-rajal ibn unfuwa saxaabi buu ibn hajar wuxuu u tarjumaynaya al-isaba fi tamyiz as-sahaba ibn abi hatim baa u tarjumaynaya culimada islaamku waa ka warramay uu soo islaam nabigu la jooga alayhi salatu wassalam wuxuu nabigu ku soo baxay alayhi salatu wassalam حديثك ابن كثير يا شيخ ابن ابي حاتم wuxuu nabigu soo maray sida raafic ibn khadij uu warinayo sanadkiisu ma xoog badna laakiin waa min as-siyar wal qisas wuxuu soo maray nabigu alayhi salatu wassalam koox saxaabo meel fadhiya abu hurayra kamida waxa kamida ar-rajal ibn unfuwa iyo saxaabo kale ayaa meesha fadhiyay طفيل بن عمرو يركله نبي وحول عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج سقى الله الله نمنك وحا كمدا رجل درسه أكبر من أحد وحا كمدا النار تقلي دونبا نمنك الله فردية وصحابه ننكاسي ما ننت قيام النار تمرك وقالوا
goyskiisu buurta Uhud waa ka weynaanaya. halka goys buurta Uhud waa ka weyn, waa buuraha ugu waaweyn. ninkii Madiina tagay baa yaqaan waa ka weyn. Raafic ibn Khadiij wuxuu yiri aad baan u nax raggii baan dib u eegay. Abu Hurayra ku jira, waxa ku jira Hebel oo la yaqaano, waxa ku jira Ar-Rajjal ibn Unfuwa oo lagu yaqaanay salaada markuu tukanayo khushuuc badan. in aad salaada ugu khushuuca oo quraanka yaqaana oo salaad saxa oo salaadiisa lama jeerto ayuu ah. nabigu markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayaa banu xaniifa waqawna nabi baynu leedahay. waxaanu doonaynaa nabigaana nala qaadato waxaa doontana weydii. dabadeedna way qanciyeen oo way fitneeyeen u la qaat. waxaa la yidhi markhaatiga u fur. ummadii baa la isugu yeedhay. waxaa la yidhi Rajaal ibnu Unfuwa ma taqaana? haa baa la yidhi. soo saxaabadii Nebi Maxamed kama mid ah oo Madiina inagagama iman oo Madiina laguma ogeyn? jawaabtu waa haa. bal dhegaysta warka uu ka keenay Madiina iyo Nebi Maxamed. wuxuu Nebi Maxamed baan ka yimi calayhi salaatu wasalaam. Nebi Maxamed wuxuu qiray Musaylima ninka la yiraahdo rasuul xagga Allah lala soo diray. markhaatigaasaan furayaa waa ku duugay. ibnu Kathiir markuu ka hadlaya wuxuu yiri la'anahu Allah, ilaahay naxariistiisa ka fogay. dad badan buu gaaftay, kuwa gilgilanayay ama shaki sanaad beerka jecel hayda jecel ayaa markuu markhaatiga ugu duugay oo dee loogaa nabiga saaxiibadiisa inuu ka mid ahaa. dad badan buu lumiyay markhaatiga uu furay. barigii dambe hadaladiisa waxaa ka mid ahaa Muhammad wa Musaylima kabshani tanataha